السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا 10 عصب وينكو برانينو Python classes and objects أما object oriented programming أو concept مهم مركز برانيس programming language مركز classes and objects انت نوجد بين object oriented programming is a programming paradigm وهاب programming that organizes code into objects مركز code key يادو كلا قيمين objects وحلده objects كاسو ككوبان that contain both data that مقشوا أما attribute والله و variables كانوا صوبرني and behavior كان وركوا methods كا isna iyana waa functions كان صوبرني لكن سمركات مركو كده جرو function كو class waxaan dhahnaa method function ma odhanaysa waxaad oranaysaa method variable kaduu ku dhex jiro class waxaad oranaysaa attribute ma odhanaysid variable marka python waa object oriented programming language هذا ربط inaad fahanto marka class wuxuu yahay waa inaad fahantaa blueprint wuxuu yahay blueprint haddaan rabo inaan guri dhiso waxaan samaysanayaa marka hore blueprintka markaan samaysto ayaan blueprintgaan u isticmaalaya markaa dhisayaa guryihii marka blueprintki waa classkii guryahaynu dhisaynana waa objectskii marka a class is a blueprint for creating objects kabacdi object classkii markaad diyaariso an object baad samaysanaysaa object instance labada waa la isticmaalaa marka classkii ayaad ka samaynaysaa object iminkana waxaan arkaynaa tusaalooyin ku saabsan sida classka loo sameeyo sida loo isticmaalo matala waxaynu doonaynaa inaynu samaysano class user information baan rabnaa inaynu collect garayno marka waxaynu odhanaynaa class ayaad ku bilaabaysaa kabacdi user classka bodigiisi baan ku jirnaa haddaynu iminka just pass dhahno waxba inooma qabanaya lex classki waynu samaysanay blueprint waynu samaynay marka waxaan oran karnaa user1 is equal to classka marka isticmaalno object user1 oo objectgaad samaynaynay waxaan oranaynaa adoo isticmaalaya classkaas ama blueprintkaas samee object user1 haddaan mid labaad inaynu samayno user2 is equal to marka laba hadda object ayaan samaynay classka markaad samaynayso waxaa fiican inaad ku bilowdo capital letter sidiisaba khasab maaha laakiinse by convention waxaa fiican inaad ku bilowdo capital letter hadda laba object ayaynu samaysanay hadaynu dhahno markaa print user1 user2 wuxuu inoo sheegaya inaynu haysano marka objectgaas oo ah isticmaalaysa classkaas userka la dhaho marka hadda data ayaynu ku dari karnaa objectigii hadaynu hadda user1kii oo kale soo qaadano waxaan oran karnaa user1 dot username dot first name is Ahmed marka hadda user1 ayaynu samaynay kabacdina waxaynu siinay data ama attributes oo ah first name iyo last name marka haddaynu rabno user1 full namekiisu kale inaan print garayno waxaan oranaynaa user1 dot first name hadaynu koon ka saarno meesha runaan hadda wuxuu inoo print garaynayaa full namekii Ahmed Cusmaan user labaad baan rabaa inaan samaysano halkan waxaan oranaynaa markaa hadaynu soo koobiyeysano halkana ka fudud haddii aan rabno marka user2 isna macluumaadkiisa inaynu gelino haddii aan matala halka soo koobiyeysano oon u bedelno meesha user1 ahayd user2 magacana ka bedelno cali kabacdi waxaan oranaya user2 user2giina halka waxaan looba inaan ka bedelno 2 hadaan dhahno user2 dot last name Ahmed Cusmaan cali Cusmaan laba waxaan samaysanay object iminka noo isticmaalayna markaa classki hadaan rabno emailka kale saasaan ugu dari karnaa email
emailki isna emailka saasoo print garayn karnaa muhiimaddu waxa weeyaan markaa attributes aynu ku darna haddaan rabno attribute inaan delete garayno waxaan oran karnaa matalan del user2 dot the first name key user underscore 2 dot first name kan delete garaynay markaa habkan laakiinse hab fudud ma aha sababtoo ah mar walba inaad macluumaadka gelisaa khalad baad geli kartaa marka waxaa la isticmaalaa hab kale la isticmaalaa oo ah method ama function init la dhaho ayaa la isticmaalaa kaasaan hadda baranaynaa marka haddaynu hadda qaybtan iska saarno classka waxaan isticmaalnaa markaa def methodkaas init luqadaha kale waxaa la dhahaa constructor waa methodka ugu horeeya markaad object samayso automatically ayuu isku execute garaynaya ereygaas self waa objectkan samaynayna laakiin waan usoo noqon doonaa laakiin method walba oo ku dhex jira classka waa inaad self u bixisaa khasab maa self inaad bixiso haddaad rabto opg baad ka dhigi kartaa laakiin inta badan waxaa la isticmaalaa self marka waa objectigii waxaan odhanaynaa classka markaan samaynayno datadaan usoo dirayno waxa weeye waa f name baan u bixin karnaa l name password haddaynu rabno emailka innagaa samayn karnaa marka f namega last name raysano innaga emailka samayn karnaa marka waxaan odhanaynaa self anaan ka bilownaa self dot f name aan odhan karnaa haddaan rabno first name khasab maa marka inay isku magac noqdaan parameterkan iyo attributeka magaciisa haddaynu doono iska dhigi isku magac waynu ka dhigi karnaa haddaynu doono kala bedeli karnaa marka first name baynu ka dhiganaynaa is equal to f name oo ah argumentkii laynoo soo diray l name passwordkii emailka marka waxaan samayn karnaa innagaa samaysan karnaa maadaama aan haysano macluumaadkan u baahnayn oo dhan waxaan oran karnaa self dot email is equal to f name plus l name plus @sign email.com marka emailka anaga samaysanay inagoo isticmaalay marka first nameki iyo last nameki laynoo soo diray blueprintki baynu haysanaa haddaba marka waxaan rabnaa inaan samayno userki ugu horreeyey user underscore 1 is equal to imika haddaan sidaas keliya dhahno user sidii marka hore aan samaynaynay oon run dhahno waxaad arkaysaa error ayaa soo baxay wuxuu leeyahay init functionka is missing 3 required positional arguments marka wuxuu ku leeyahay datadii baan kaa sugay inaad ii soo dirto f name l name iyo passwordki markaan samaynayo userka datada halkan aan ugu soo dirayna waxaan leenahay ali passwordkan ugu soo dirnay haddaan rabna aan print garayna marka full namekii waxaan oran karnaa print manoo isticmaalayna formattingkii user1 dot macluumaadkii datadii oo dhan halkaas ay nooga soo baxaysaa email first name last name password waxoo dhan baan markaa printerkaysan karnaa f name space halkaa waxaan marka ka samaysanay userkii ugu horreeyey macluumaadkiina waan print garaynay haddaan rabna inaan user labaad samayno waxaan samaynaynaa markaa magacun baynu ku bedelaynaa kabacdi waxaan leenahay user2 halkan aan ilowna inaan user2 dhahno halkana user2 laba user oo kala duwan baynu haysanaa hadda marka ali maryam ali marka habkaas ayaa loo sameeyaa constructorka ama initializationna waa la dhahaa ayaad macluumaadkii usoo diraysaa halkan waxaan ka aragnaa inaan mar walba soo celcelinayno markaan rabno inaan hadda print first nameki iyo last nameki inaan print garayno ama details kalaba inaan print garayno haddaan rabno habkan waxaa ka fudud inaynu markaa
method samaysano method kaas oo markaa inoo print gareynaya macluumaadkii okay marka method ku waa function kii aynu soo baranay un waa def waxaan oran karaa def print details haddaynu u bixino functionka sana waa muhiim inaynu dhahno self ka ugu horeeya kabacdi marka waxaynu oran karnaa macluumaadka aynu soo qaadan karnaa halkan waxaad ka garanaysaa marka self inuu yahay objectiga meesha username-kan ku qoray halkan waxaan u bedelaynaa self marka halkii halkan hadda aynu inagu ka print garaynayno waxaan u yeedhanaynaa functionkaas waxaan oranaynaa user1 dot waxaan aragnaa marka print details waynu haysanaa parenthesiskaas waa muhiim waayo waa method user2 haddaan rabno macluumaadkiisa print garayno isagana waxaan oranaynaa intaan waxaan odhan iska saarno dot print details haddii dhahno marka axmed cali maryam cali marka methodskii halkana waxaynu ku samaysanay classkii constructorkii ama initializationkii iyo methodo badan oo kala duwan ayaad samaysan kartaa haddaad rabto dhowto inaad details kale aad print garayso haddaad rabto inaad xisaabiso xisaab hadduu yahay matalan employee oo kale marka waxaad u samayn kartaa methods kala duwan oo qabanaya shaqooyin kala duwan waxaa la soo gaaray waqtiga challenge-ga waxaad isku dayda inaad samaysaan car class oo leh 3 attribute model noocu yahay gaadhigu year sanadkii la sameeyey mileage iyo intuu socday marka default waa 0 waxaan leeyahay marka uu sameeyna laba method oo la dhaho drive miles marka drive-kaasi attribute wuxuu wataa parameter buu wataa marka inaan usoo dirnaa mileage-ka markaan soo dirno ayaa waxaan ku daraynaa mileage-kii halkan inoo yaalay ayaan ku daraynaa marka display info waa methodka labaad oo isna print gareynaya macluumaad ku saabsan gaadhiga marka create at least 2 different objects marka laba object baan rabaa inaan ka samayno Toyota iyo BMW oo kale oo markaa macluumaadka gelino isku daya kabacdina waxaan idin tusi doonaa solutionka marka solutionka isla aragno marka waxaan samaynaynaa class car init oo ah meeshan macluumaad ku soo diraynay waxaan u soo diraynaa model year iyo miles waxaynu ka dhigaynaa markaa default argument aynu ka dhigaynaa 0 aynu haddaan doono 0.0 marka haddaan miles kale inoo soo dirin waxaanu ka dhigaynaa automatically 0 self dot halka waxaynu ku haysanaa markaa attributeski oo dhan baynu haysanaa mileska marka haddaan rabno inaynu increase garayno waxaan oranaynaa def methodkaan samaysanaynaa then waxaan u bixinaa increase mileage self oo method kasta lagu darayo iyo mileskii oo aynu rabno markaan methodkan u yeedhno aynu usoo dirno markaana self dot miles plus equal waxaad ku dartaa mileska lagu soo diray halka waxaan ku haysanaa methodkii koobaad methodka labaad waa display details then u bixino details self kaliya macluumaad uma soo dirayno waxaan oranaynaa print modelka selfkii baan halkaa iloway soo maarata marka ma garanayo variablekii haddaan halku bedelno self dot model year waxaan oranaynaa year mileska waxaan oranaynaa self blueprintiga halkaas inoogu dhan yahay oo waynu samaynay classkii kabacdi waxay noo harsan inaan objectska samayno object ugu horeeya haddaan dhahno obg1 ama car1 car hadaynu dhahno modelku waa Toyota yeerka la sameeyey waxa weeye
2020 mileage kan xanuunaynaa uu ku bilowday matalan waa 10 car 2 haddaan dhahan isagana soo xanuunaynaa waa BMW sanadka 5 mileage haddayna usoo dirin 0 buu ka bilaabanaya labadaba marka waxaan bertigaraynaynaa macluumaadka si aan u aragno waxaan u yeedhanaynaa details marka haddaan dhaho car 1 dot details macluumaadka noo print garee car 1 car 2 dot details kale haddaan run dhahno model Toyota year 2020 mileska kana waa 0 ad aragtaan haddii rabneen miles ku darno waxaan oran karnaa methodka increase baanu yeelan karnaa waxaan oran karnaa car 2 ama marka hore 0 baynu ka bilownay kabacdi waxaanu yeedhnay methodkii labaad increase mileage waxaynu ku darnay 25 buu socday matalan kabacdi baan haddana markaa 2 dot details u yeedhayna marka inuu 25 ku daraa marka hore 0 buu ahaa hadda 25 buu noqday kii 10 ka ahaa haddaan hadda ku darno isagana car 1 dot increase 10 buu ahaa waxaan ku darnay 10 kale matalan detailskiisa haddaan print garayno ka 20 buu noqday markii hore 10 baynu ku bilownay halkaas ayaan ku gabagabeynay casharkii ugu horreeyay oo ku saabsan object oriented programming hayloobina inaad like iyo subscribe ka saartaan si ay dad kale uga faa'iidaystaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.